أصحابت كسر دوادة رونشاق ميديا نتورك أصحابي أنا واحد إسرد دعوانا شوكر كسياسات أما عياريها كخط كرحة يقانو سيد الله عيال بوليتيكال تريكس كأما قيانوين كسياسات runtii waa cabdixakiin xildhibaan cabdixakiin waa madaxa istiraatiijiyadda xukuumadda hadda joogto yaqaan sida loo dhiilgaray mucaaradka iyo dowladda runtii ajendayaasha iyo fishinkiisuna ay ka mataqaanaa aragti dheer tahay rag badan oo hadda siyaasiyiin ah cabdixakiin waxa uu arkaayo runtii dad badan ma arkaan laakiin xaqiiqatan markaan analyze garay waxa ii soo baxay inuu yahay mastermind-ka hadda xukuumadda qorshaheeda kala wado oo runtii ay ama laf dhabarku ah lifeline-ka hadda xukuumadda joogto inuu yahay isoo baxda marka bal waxaan isla daawanaa xal markuu la hadlayay wariyaasha kulankii oo la kulmay madaxdii mataqaana mucaaradka iyo musharaxiinta kadib oo waayahan la kulmayay siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo culimada marka waxaan isla daawanaa weydiino soo dhow ay khiyaarta noo yeertay waxay noogu yeereen ayna nagala hadleen aragtidooda siyaasadeed iyo sida ay dalka u arkayeen iyo waxa ay la tahay inay khaldan tahay inagoo kaliya waxaan u sheegnay inuu dalkana maxaa la yiraahdaa wali mandate-kii dowladda ku shaqaynayso dastuur in la maaragtay la cusub la diiwaan geliyey maxaan dhihi lahaa la shaqo geliyey isla markaana muddada soo socota ay tahay wali muddaxaleedkii dowladdu inay ku jirto amniga iyo security-ga iyo isbeddelka dalka ka jira wanaagsanna la dhiirigeliyo aragtideennaan u gudbanay marka hadalka la soo aruuriyo iyaguna waxay noo sheegeen oo khiyaarka aan la kulanay aragtidooda siyaasadeed waxay noo sheegeen isbeddelka inay doonayaan in dalka isbeddel ka dhaco waxay doonayaan 15 May ay tahay xilliga mandate-ka dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh hogaaminaya inay dhamaatay baarlamaanka inay Abriil dhamaatay innaguna waxaan u sheegnay aragti ka duwan dastuur dalku wuxuu leeyahay adad dastuuri ah oo mandate iyo awood u leh inay wax bedelaan wax sameeyaan oo baarlamaanka ugu horeeyo baarlamaanka waajib uu gutay dastuur oo ansixiyo muddaxileeda dastuurka ku dhex qoran muddaxileedkaas sax ah 15 May 2027 ay dowladda Soomaaliya mandate-keeda madaxweynaha iyo baarlamaanka ku egyahay marka inagu waxaan aaminsanahay in dowladda lagula shaqeeyo inay mandate-keeda waajibaadkeeda loo idmado inay gudato qofkii xildhibaan ee mas'uuli inuu halka qaato qofkii campaign iyo doorasho ku jiray inuu taa ku tala galaano midaan aaminsanahay aan u sheegnay khiyaartii nala xildhibaan waa maasoo 15 May ka dambeeyay maxay ku joogay mucaaradka 15 May bisha soo socota may wallahi de